بسم الله الرحمن الرحيم. waxaa maanta marti uga ah saxaafadda Soomaalida Ogaadeniya ee ka howlgasha waddankan Canada afhayeenka jabhadda wadaniga xoreynta Ogaadeniya isla markaana ah gudoomiyaha hoggaanka abaabulka iyo arrimaha jaaliyadaha mudane Cabdulqaadir Xasan Hirmooge Cadaani kusoo dhawow warbaahinta Ogaadeniya ee waddanka Canada. aad baan idin salaamayaa waan dhawahay maasantiin sidoo kale bal waxaan doonaynaa in waraysi yar kula yeelano maanta maadaama aanu fursad qaaliya ku helnay in aad noogu timid waddanka Canada adigoo noo soo koobaya bal wax yar nooga sheeg taariikh nololeedkaaga. wallahi taariikh nololeedkayga dee waxaa fiican taariikhyahanadu inay qoraan aada isugu kayda buridna waxaan ku dhashay Ogaadeniya waxaan wax ku bartay magaalada Muqdisho iyo waddanka Suuriya jaamacadda Dimashq ururada dhalinyarada Ogaadeniya ka soo halgamay Soomaali galbeed kadibna waxaan ku biiray gudahan ka soo halgamay qurbahana waan ka halgamay isagana haddana kormeer baan ku imid dalkiina intaan garaadsaday halganka Ogaadeniya ma ku dhex jiray. aad baad mahadsan tahay taariikhda yare kooban. su-aasheeda labaad waxay tahay waxaad muddo bil ah hadda ku sugnayd waddanka Canada bal waxaad nooga sheegtaa socdaalkaagana wixii uu ku saabsanaa. socdaalkaygan wuxuu ahaa socdaal aan ku marayay wadamada waqooyi Maraykanka la isku yiraahdo Yurubna qaar kamid ah waan soo maray dalal kalena inaan sii maro bariga dhexe iyo Afrika waa qorshaha waa ku jirtaa inaan u koorgalo xaaladda halgan ee jaaliyaadka inaan warbixino ka dhagaysto jaaliyadaha kala duwan ee dalkan Canada oo ilaa iyo 6 jaaliyadooda oo gobol aad u kala fog oo waddankan qaarad buu ku dhow yahay wadamada dunida ugu waaweyn buu ku jiraa ka labaad inuu yahay filaya xagga badka ugu weyn dunida halkaas aynu ku kala firsan yihiin jaaliyaadkeenu hawlo aad muhiim ah oo hayaan hay'ado kala duwan bay ka kooban yihiin marka kuwaas oo dhan baan ku gurgalayo sida dhalinyarada haweenka muxuu ahaay arrimaha qolada activist ee xuquuqul insaanka iyo advocacy-ga guddiga jaaliyadaha iyo integrationka iyo xiriirka dawladaha ka shaqeeya marka shacbi ballaaran baa naga jooga meeshan oo ummadana shaqo weyn u haya. aad baad mahadsan tahay. su-aasheeda labaad waxay tahay gudaha Ogaadeniya ayaan doonayaa bal su-aal ku saabsan inaan kaa weydiiyo baryahan dambe waxaa aada ugu sii qulqulaya shirkadaha shidaalka ah waxayna dhibaato ku hayaan dhulkii daaqsinka ahaa iyo shacabkiiba bal arrintaa wixii aad ka odhanayso bal noo soo gudbi. way jirta arrintaas dhaqdhaqaaq soo kordhaya oo shirkaduhu ay aagaga shidaalka iyo gaaska laga helay ay ka howlgalayaan gobolka Shabeelle iyo gobolka Doolo iyo gobolka Qorraxayba gobollo kale oo ay shidaalkaas ku jira inay ku durkaan waa suuragal dhulkii waa la xaalufinayaa oo dhirta laga gurayaa si loo baneeyo daaqii dadka ka manaafacaadsan jiray shacbi waa reer guuraa iyo dhirtii uu dugsanayay iyo harsanayay manaafacaadsanayay shacbi Ogaadeniya arrinta aad buu u diidan yahay waa hantidiisi oo la boobayo waa khayraadkiisi oo cadowgiisi ka boobayo marka arrintaas arrin sahlan ma ahaanayso insha Allah dibadda iyo gudaha waan kala dagaalami doonaa arrintaa in shacbiga asagoo ayisa ka tashan in hantiisa lala baxo in la hor istaago weeye go'aanka jooxo waan hor istaagi doonaa hadda ka hor waa hor istaagnay maantana si sahlan in lagula baxo way adag tahay qoladii ku indha adeegtana hadda waa lisu joogaa Ogaadeniya halgankeeduna waa halgankeedii shacabkii hantida lahaana wuu joogaa in la boobi karo in kale taariikhda markaad ka noqon doonto. aad baad mahadsan tahay. su-aasheeda kale waxay tahay muddo dheer ayuu socday halganka Ogaadeniya 31 sano waxaad tihiin jabhaddii ugu cimriga dheereyd geeska Afrika waxaana tihiin jabhaddii ku khasabtay in ay miiska wadahadallada keento waddanka Ethiopia waa markii ugu horreysay marka shacabka reer Ogaadeniya baryahan dambe waxay dhigaha u taagayaan mar walbaba xaguu marayaa wadahadalladii bal markaa arrintaas bal wax yar naga sii. halgankayagu wuu dheer yahay oo 31 sano ay jooxa halgamaysay kuma eka
sodomeeye 48 1948 laga soo bilaabo markuu gumaysiga Ethiopia dib ugu soo noqday ee reer Yurubkii haystay ogaadeen ay ku wareejinta bilaabeen inay ku wareejiyaan dalkanaga Ethiopia ayuu dagaalkan goobandoonkii la bilowday xisbigii Nasrullahi jabhadii xoreynta ogaadeen jabhadii xoreynta Soomaali galbeed jabhadii wadaniga xoreynta ogaadeen saas isu daba taagan yahay waa halgan dheer oo xorriyad raadina halgamada guuleystay ummadahan way dheeraadaan ummado waxaa jira sida Koonfur Afrika oo kale 300 sano ay halgamayeen Falastiiniyiintu wali way halgamayaan Eritreaanku dhowr iyo 30 sano ay ku xoroobeen ummado inta ka badan dagaalamaya ayana jira marka halganka iyagu uu dheer yahay iska caabin dheer buu lahaa haddana ilaa yoolkiisa ka gaaro uu socon doonaa arrimaha wada hadalka مبدأ بكتها جواد ودين وحرينت وقاديني إن أرنت وقاديني هي خلافات كسياسية هي خلافات كستقعد على الوحة اللي يسن الجليل وقرآن حداريا هي برنامج هي مبادئ جهادة هي سلسلة هي مركي الأساس استيت إني أفرتيب هي كسب باللابطة إن أرنت وقاديني أي كوها بونتا إن سن الجليل أو الوحة اللي سئوا مذاها جيس كأفريقيا النبض هو النولان شعب جيلنا وفرصة وجهه لأنه إسحرهم مريو gumaysiga Ethiopia oo uga nasto dagaalka uu ula jiro ee isna hagaasinaya aqli horumarsan baa marka dawladda Ethiopia markii horeysay ay ogolaatay wada hadalladaasna dawlado geeska Afrika ku yaala dhexdhexaadiyalka xogag caalami oo hoosta ka taageerayaan waa jiraan anagu dhanka yar diyaar baan u nahay waxaan doonaynaa waa nooc cad yahay waxaan soo bandhigaynaa waa cad yahay kulamo dhowr ah dhacay walina inay kulamo kuwa kala dhacaan baa la filayaa halgamada wada hadallada adduunka nooc anaga oo kala ah sida kuwa Falastiiniyiinta iyo Israa'iil sida kuwa Koonfurta Suudaan iyo Waqooyiga Suudaan sidii Koonfur Afrika iyo ANC iyo muxuu ahaay midabta koorkii way dheeraadaan wax adag baa la isku hayaa marka anana waa u diyaarsanahay halgankana inuu socdo wada hadalkan uu socdo haddana waa la filayaa inay mar kala dhacaan shacbiga iyagu inuu ku wareero maaha halganka inaan laba laabno weeye haddii la rabo inay wada hadallo si fiican u tarraan waa inaan laba laabno oo Ethiopia ku kalifno xaqeena inay miiska soo saarto sida lagu kalifo gumaystayaashii adduunka soo maray oo dhan aad baad mahadsan tahay ugu dambeyntii waxa weeye waxaa laga daawanayaa caalamka oo idil warbaahinta ogaadeynaya ee ka howlgasha dhammaan caalamka Ilays TV Qoraxay Media Ogaden Today Ogaden 24 jeexdin online iyo dhammaan warbaahinta xaqa ah ee Soomaalida ogaadeynaya ugu dambeyntii maxaad soo jeedinaysaa shacbiga caalamka oo dhan maanta ka daawanaya shacbu adduunka waxaan leenahay shacabka iyagu xaq u leeyahay inuu nabad iyo xorriyad ku noolaado gumaadka Ethiopia go'doominta xaburinta xisaarka iyo nolol kala dagaalanka saxaafadda adduunka iyo diblomaasiyiinta iyo samafalada laga hortaagan yahay dhaqdhaqaaqa ganacsiga dalalka deriska uu leeyahay laga hortaagan yahay genocide baa ogaadeen ka socda dunida inay aragto ururada bulshada ogaadeen iyo dibadda ka howlgal gaar ahaan waqooyi America daatiin inaad dhaqdhaqaaqiina xuquuqul insaanka iyo u doodida shacbiga inaad kor u qaadaan shacbiga ogaadeen ya iskale inuu isdifaaco oo qalin isku difaaco oo qori isku difaaco marka inteena fursad u heshay caalamka kale inaan la noolaadaan inaan gaarsiino way dhibaatada shacbigeena kana doodno isla mar ahaanta cadowga dibadda laga taageeraa inaynu kala dagaalano in dulmigiisa gacan lagu siiyo taa shacbiga ogaadeenaya ee wadamada horumarsan iyo reer galbeedka ku nool bay u taallaa hadda ka horre wax weyn bay ka qabteen haddana way ka qabtaan inay laban laabaan baan ka doonaynaa caalamkana waxaan ka codsanaynaa kama xuquuq liidano shucuubta dunida dhiigga shacbiga ogaadeenaya kama hooseeyo kuwa wiilkii yaraa ee Suuriga ahaa ee intuu badda ku baktiyay dunida oo dhan bedelay boqolaal ilmood oo anaga intii la dilay oo hooyadii la marjiyay iyadoo meyd naaskeeda dhaari ayaa jira ilmo yar oo 2 jir ah ama 1 sano jira oo intuu cadawgu dilay askari kaba buudo oo military qaba madax kaga taagaya jira xaqiiqooyinkaas ogaadeen ka jira inaga inoo taala inaan soo saaro marka dunida aragtaan ugu baaqaynaa shacbiga ogaadeen waxaan ugu baaqaynaa halkan keeni wuxuu soo gaaray marxaladii guusha gaarina marxalad adag buu soo gaaray marxalad horumarsan buu soo gaaray marxalad cadowgii hayn kari lahayd soo gaaray inaan laba laabno halganka gudaha ka dibadda ka saxaafadda ka dhaqaalaha ka abaabulka ka xuquuqul insaanka iyo u doodista dadka iyo midka siyaasiga ah inaan shacbiga Soomaaliyeed muxuu ahaay dhiirigelino
oon dagaal gelino shacbiga soomaaliyeed midayno shacbiga soomaaliya ogaadeenay midayno shucuubta geeska africa ka dhaadhicino qadiyadeena ta caalamka ka dhaadhicino gumaysiga etoobiya inaan afka dhulka u gelino wey cadowyo badan buu leeyahay guduhu kaga kacsan yihiin shacbiga oromada amxaarada gambeelada benshangolka canfarta sidaamada intuba dagaal bay ku jiraan in yar baa u hadhay t b l fircoonna waa ka dhintay marka wax isku haya male afkay dhulka gelinaysaa shacbiga ogaadeynaya guusha waa inuu kasoo dhufto jeebka etoobiya oo kala soo baxo innagaana etoobiya 20 sano u dambeysay kubaddiina dhex tigay si fiican baan uga adkaanay in yaroo muxuu ahay dabaqoodhiyeyn iyo muxuu ahaay macaan jecelnimo ah oo muxuu ahaay maafiyo maamulo maafiya waddankeena laga dhisay oo shacbigeena gumaadaya ma cabsi gelin doonto fagaaraha iyo kubaddiba wayna dhex yaalaan si fiican shacbiga ogaadeenya ha u dhaliyo goolkiisa jabhadduna waxay karti u leedahay inay hogaamiso oy ku hagto guushooda hogaamin fiican iyo hagid fiicanna 30 sano waynu soo marray taariikhda iyo jawiga statuska siyaasiga xaaladda siyaasiga iyo midda qaanuuneed ee shacabka qadiyadeena waan bedelay guushana inaan gaari karaan hubnaa halkaas ay ballantu inoo tahay annaguna waxaad naga sugaysaan inaan idinku helno dariiqa saxa aad baan kaaga mahad celinayaa mudane cabdaani waqtiga fiican aadna siisay waana kulmi doonaa aad baanad u mahadsan tahay halkan aad naga daawanaysaan waa saxaafadda soomaalida ogaadeynaya ee ka howlgasha caalamka oo idin gaar ahaan waddanka canada waxaana si toosa nooga daawan doontaan warbaahinta ogaadeynaya olays t v qoraxay media ogaden today ogaden 24 jeexdin iyo dhammaan warbaahinta ogaadeynaya oo anigoo cabdiraxmaan ah oo idinla soo socodsiin doona barnaamijyada dambe ee soo socda sida iyo nabadgelyo